dhacdooyinka ku aadan dadka la xadaya ee u badan carruurta waxa ay noqdeen arrimo ugub ah oo muddooyinkii dambeba si isdaba jooga uga dhacayay caasimadda Somaliland ee Hargeysa. maalintii Arbacada ee toddobaadkii dhammaaday oo ku beegan 7 bishan March waxaa arooryo hore oo abbaare 6 subaxnimo ah aqalkooda hortiisa laga afduubay Faadumo Cismaan Almis oo ah gabadh u dhalay fanaanka caanka ah ee Cismaan Almis. Faadumo Almis oo aqalkooda hortiisa nadiifinaysa salaadii subax kadib maalintii Arbacada ee toddobaadkii tagay waxaa si indhasarcaada u afduubay 2 nin oo caddaan ah oo ku qaatay baabuur nooca loo yaqaano Langaruuselka oo ay sheegtay in uu waday darawal Soomaali ahi isla markaana lagu sitay 2 dumar oo iyada sida ay sheegtay hadalku uu ka xidhan yahay. bismillaah walaarta wallahi qisada qisa cajiib ay ahayd dadana wallahi maxaan ku dhaaday halkan meherad baan ka fiiqayay guriga horteeda ah cabaar dhixdiya barkii bay ahayd 2 waxay yimid ilaa cadaana gabadhii biyo markii hore way dhaafeen markii labaad ay soo noqdeen biyo igu daadiyeen biyo qabow waan raacay aragti waan arkay laakiin hadal soo celinayo miyir mu jirin may biyo ma ku shubeen way iga horeeyeen gabadhii luuq xagaa guri xagaas meel xagaa yar dheer baan gaariga ka raacnay gaarigu waxa gaari Langaruusel cadaana oo beersol ku xiran tahay waxa fuushanaan 2 dumar ah oo kaan lagu xidhoon hadlayn kan irbada lagu xidho aan hadlayn gabadhii waan dhaqaaqnay gaariga waxa waday ninka waday waxa la Soomaali ku hadlaya xaga dama afar baan ku fadhinay aniga iyo 2 dumar kaan wala ku xidhnaa ma hadlayaan waxa lama soo celinayaan gabadhii xagan shii waxa iga xigay daaqada ninkii kala cadaankii xaq oo ninka la koray ninka gaariga waday gabadhii waxaan marayno maxaan ku dhaaday jigjigeer iskuiskan dab ay maray adu marka waad garanaysaa iskuiska maraysaan halkan waxaan ka dhaqaaqnay wax miir ma jirin laakiin markaan marayno Sacaadadiin miirkaygu soo noqdo waan arkay dadana waxaan ooyay markaas uu ma suuxsaneen ki gaariga wada soo dambeeyay markaas uu naagta ma suuxsanee inaga suuxiya dadana halkan gacanta waxay iga xidheen way soo dharbaaxeen xididkayga hore soo bixi waayay kii aniga ag fadhiyo labadan af Carabi isku hadlayeen kii ag fadhiyo baa dhacay dad markuu dhacay af Carabi ku hadlayeen dadana markay dhaceen uu daaqadiisa uga dhacay uu wada dhacay ayuu ku xagayaan ka galiya looge hore uga dhacay daaqada dadana markuu saa daaqada uga dhacay ayaan ka daba dhacay saas isku tuuray shalmada meelay qabsatay dadana saas soo jiiday waan qayliyo war hayaa iga rida baan idhi in dariiqa marayay oo tukaan watiba tukaanka daaqada joor waa sidee ku yiri dadana gabigii macal shalmada inta saa la soo tuuray ee gaarigii maxaan ku dhaaday la koray ayaa la baxsaday inay tukaanka wadada ka baxay oo gaarigii soo xidho yimid kiina waan ka baxsaday dadana waan baxsaday xaggan saan ugu soo ceeray kor baan u carreeyay kaalinta in gaafina markaan marayo ayaan dadta meel ku dhacay wadnaha xanuunay mar dambe waxaan soo yimirsay dad badan oo dul taagan telefishinka caalamiga ee SAF TV oo dabagal ku sameeyay dhacdadan waxa uu arintan ka wareystay goob joogayaal ay ka mid tahay hooyada dhashay gabadhan la afduubay markaas walaal ku dubay marka halkan bi inaan tafiiqaysay halka baa 2 nin oo cadaan ka soo bixin marka 2 nin oo cad oo barsada watay ahaayeen marka kadib inantii halkaas aaba soo eegaan way soo eegtayna way istaagtay inantii kadib way dhaafeen nimankii ana gurigii baan galay mar dambe ma soo bixin markii dambe la yiri Faadumo la waayay waati halka fiiqayso baan nidhi doorta waxaan waxa weeyaan wax maqal mooyeen hore warki jiray maaha taymkana Ilaahay waxaan ka baryaynaa dhacday anaga Ilaahay deehu noo bidbidiyay ilmaha yagiyo fayow Ilaahay nala kulmiyay Ilaahay wixii umada nala midana waxaan sidaa isleeg baan uga lag baryaynaa inuu Ilaahay una cadawga waxba gacanta inooga galinin dawladana waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan hooyo ilaa waxaynu hore u arki jiray wax loo adkaysta midna ma aha cadawga inagu dhex jiree cadawga Ilaahay intuu inantii gacanta u galiyay Ilaahay naga badbaadiyay waxaanu leenahay cadawga la daba galo